بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba oo joogto salaamaya. Waxa waaye horta mar walba waxa isdhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talantigaaga waxa waaye fan iyo hees oo intaa ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ee arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo roodaa jiro oo ku soo aadayo waxa way muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxaynin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweyn inay wax soo meelay jiro kulay dawlad iyo wax is afansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas u meelay jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon u maleeyay umana maleynaya dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah ama magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kii hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlayo horta aniga cid aan ka baqayo oo Ilaahay ma jirto maxaa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkay adeer darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is aamin aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay adeer darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacantu ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa content waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyo heer ah oo gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu soo diri jiray wax walba uu sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax aan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhac joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay daarood iyo fitri ka dhac iyo qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas igu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa igu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga aan ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti uu jooga gaaja ku dishay kan uu ka hadlay waxyaabahaas uu ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaade waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaa ka eray wuxuu yidhi show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan fiidiyoon u iga haynin oo waxbana igu sameynaynin wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada ka mid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhahorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaane maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waaye wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxaa la itaha Axmed Rasiid aan dhahay waxaa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii aan arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari fade waa bariye ninkii markaan bariye waxa waxa la ii sheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa waaye imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa soo gale intii ma ku ere waxa deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garowe ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaaya marka hadda waxay taageertaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waaye ninkii maxaa la yiraahdaa hadii YouTube-kii baasweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqaay ma laha gacanteedina ay ugu jiraan waxa waaye maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay oo Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay qofna ma bari jirin xaniyay igu jiray oo Soomaali isku barin wali igu jiraa waxa waaye daciif waaye nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeerta wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinka inay ogaadaan rabaan dad asxaabta ka mid ah oo codad aan markii aan ka qabanayno iyo anaa la wadaag anaa diray waxa waa dad u diray waxa waa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka ma soo heshiina ninkaasi aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay heshiinay YouTube-kayga xaniyay marka hore la iga qaado la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla joogna deeqo telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rasiid Allah ka hadlay oo Axmed Rasiid ka telefoon ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxiib adaa ninkaas ninka la yiraahdo Axmed Rasiid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaa ninkaas saas waxa la yiraahdaa iga heelay waxna igama qaadi lahayn YouTube cusub aan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo siraftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Axmed Rasiid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo galay qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-kaaga kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islahaa sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimad soo fariisa waxay tahay waan inuu tusayaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka rag laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaayo ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sheekadan weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlaya dadku kula feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiyaa hoosteedu nagala diraaya waxaa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameynayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintan waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxaa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusha naga koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leeyahay Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga dabaharin agta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aadamco waxa ay soo hor istaagayo أحمد رشيد waxaa soo hor istaagay Axmed Rashid ninka nooyilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa uu yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo uu ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxa basabeeyo xaniima qol meeshaas ugu jira dada waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qof ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalinimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas uu faaq ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxa waaye waxa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil oo waxba ka aqoonin naragu waxba ka aqoonin heerus waxba ka aqoonin waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Axmed Rashid gacanta noo galiyay waxa haddana uma jabin oo macnaha waxa la oynaa aan la cishoonaa ma YouTube-keegi in macnaha gacanta uu ku heesto ama wali la xukum YouTube-keegi ana gacanta ku heesto xitaa deeq darajo gacanta kuma hayo akoontigeega ana gacanta ku heesto YouTube-keegi ana gacanta ku heesto waxa walba ana gacanta ku heesto laakiin wali aga jugleen iyo dadkii deeq darajo ilaa hadda waxa way uu ka soo tagay noloshiisii wixii u socdo horumarkiisii meeshu joogo ka soo tagay waxa way xayaat kaajal ayaduna sidoo kale gabadha way ka soo tagtay waxa xamar ay ku sugan tahay وأوجا صوت دبته جو حاوي دبته وهذا وخبته wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta ka soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo ku saastay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhaweyda bixiyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madax looga haaya xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo ifurneed ma lahan wada kale oo sameeyaa in ninkaas tuwaco aan bariyo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahan markii tii ay dhacday subax qadar ay qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagto oo noo saaran yahay oo na dabahaayo waxa waaye anigana ma aan shaqsi u dabahaayo waxa waaye ninka deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku isdhaana laga yaabo dadkan maxaa yiraahdaa familiadood ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa la ogaayay meeshu ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegtay aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaga ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jarteena ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim maahan qabyaaladu qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoon looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya aan qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye